بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسر دمان بأخيار شرفت حشمة أي قدرين ترى إن جلسوا حتى أرق ميديا كوسو دوادا برنامج كي شل عادة معها طاوض يا التضباط كوحين كوسو قادن دونا حمانتا يرادت كحنحنا يربتي قبيالته التضباط كي كان جورية طاوض يا الواحد كوسو فلانقيني قاب حنو استعمال abka ama application ka la yiraahdo talagal toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa xumaanta ay leedahay qabyaaladdu waayahay daawadayaal haddii aynu barnaamijkeena gudagallo oo aynu bilaabano qabyaaladda marka aynu isnidhaahna ka hadla waa wax aan laga gayoonahayn oo maaragtay aanaan ka baxayn ilaa maanta haddaynu ka hadalno laakiin waxaynu iftiimin doonaa xumaanta ay leedahay qaabka loo isticmaalayo si bulshadu u kala fogeysay iyo dagaalada ay sababtay horta asalka qabyaaladdu marka hore waa maxay qabyaaladdu waxa weeyaan qofka oo ama qabiilkiisa lagu haybsooco ama lagu eriyo ama qabiilka kale u faana oo eriya oo ma garanaysaa ay ugu awood sheegtay raahdo ama laandheeraan nahay ama anaga sidana ama dad reeb hebelnahay qabiilkiya qabyaaladuna waa kala gaar qabiilka ilaahay wuxuu inoogu tala galay inaan isku kala garano midba kala deesi aan maaragtay xoolo loo noqon laakiin qabyaaladu waa qabiilkii asalka ah ee magaca ah ee dad iyo bulsho lahayd oo bulshada kale ma garanaysaa ay ku eriyato qabyaalada intaas in horta marka hore ku qaxayna haddii aynu Soomaalida iyo heerka ay la gaadhay Soomaalida waxay la gaadhay heer aad iyo aad u xun qabyaaladu oo waxay la gaadhay in qabiil kale uu wad sheegto qabiilka kale uu wad sheegtay haddana uu isaga dhexdiisa soo awood sheegto haddana uu isaga dhexdiisa soo awood sheegto oo marka dambe noqoto jufu sida basasha oo kale ma garanaysa wayda qabyaaladu xumaanta ay leedahay baaba marka horeba noocaas waa kaabwaankii weynaaye timcad lahaa dugsi meel qabyaaladu waxay dumisay mooyaan si kastoo aad qabyaaladu wado iyo si kastoo aad qabyaaladu wadaan iyo si kastoo tiraadaan anaga laandheera iyo si kastoo wadaan wax xumaan waxaad ku jirtaa weligaaba marka dambe adiga ugu soo noqonaysaa idinkeedu ugu soo noqonaysaa reerkiina ugu soo noqonaysaa aakhirka way idin mijaxaabinaysaa midhaha ay hadda badhashay qabyaaladu baynu ka hadlaynaa qabyaaladu waxay dhashaa qax qabyaaladu waxay dhashaa dagaal qabyaaladu waxay dhashaa diin la'aan qabyaaladu waxay dhashaa ma garanaysaa in waxaan de aqliga gelahayn la isku dhaqmo qabyaaladu waxay dhashaa dulmi qabyaaladu waxay dhashaa kibir qabyaaladu waxay dhashaa isla weyni qabyaaladu waxay dhashaa qaran burbur qabyaaladu waxay dhashaa dawlad la'aan qabyaaladu waxay dhashaa jahli qabyaaladu waxay dhashaa balaayo dhan oo de qabyaaladu wax maaragtay laga gayoonayo ma xumaanta ay dhasho midhaha ay ka tagta iyo raadka ay reebta iyo ogxaanta ay aasto ayaaba noocaasaba geligeeduba qofka aqliga leh aqoonta leh cilmiga leh ee waxaan garanayaa hadduu si ma garanaysaa qiimalo u daraaseeyay qabyaaladda uu garanayaa xumaanta iyo waxay raadadka xunxun ay ka tagtay daawadayaal sidaasoo ay tahay qabyaaladda yaa beera qabyaaladda sideedaba yaa beera waxaa jira shay walba wax bacarimiya wadooguba ma soo bixin haddaan roob gudiin qabyaaladda waxaa huriya amaba beera sideedaba siyaasiyiinta Soomaalida dawladda shisheeye hogaamiyayaasha beelaha amaba madax dhaqameedka waxa la yiraahdo haddaba qaab nooceeya bay maaragtay ay u beeraan oo ay bacaribiyaan dhammaan intan aynu soo sheegnayba dambi ka leeyihiin waana salaan lagu fuulo meeshii la doonayo kadib marka lagu gaadhana sidii la doono laga yeero matalan siyaasiyiintu markuu xil doonayo ama uu kursi doonayo ama uu wax u socdo wuxuu kicinayaa beeshooda ama reerkooda si ma garanaysaa reeraha kale ay uga cabsadaan oo la yiraahdo reer hebel baa hadlaya ninka kursiga saaray waxa kursi loo doonayaana waa shakhsiga kursiga loo doonaya ama la rabo inuu xil ama mas'uul qabtana ciidan uu qabyaaladeenayana waxba uma qabanayo kuwa uu ka qabyaaladeenayana waxba uma qabanayo cidda uu socdo isagu ma wax qabsanay waa nin shaqo tagay oo shaqadiisii u soo kiciyay reerkii kale say ugu dulmiyaan hadhow toona bulshadu waxba ugu qabanahay siyaasiguna salaanka uu ku shaqo tagayo si uu maaragtay rakadiisa ugu fuulo ayuu u isticmaalaa qabyaaladda isagu qaabkaas uu isticmaalaa dawladaha shisheeye markay doonayaan inaanay ama qaran dhismin ama bulsho dhismin ama dawlad dhismin ama meel horumar ka soo muuqdo de waa la fahmay Soomaalida oo dawlado badan oo waxa jira daba socda Soomaaliduna halka qura ay ka damqataaba waa qabyaaladda qabiilka marka halka qabyaaladda aad ka gaadho ama aad ka taabato waa boogta qura ay ka boodi karto amaba sida dhibta yar la isugu diri karo marka marka la rabo inay
maaragtay wax qabsan oonay horumar gaadhin oonay jamac noqon oonay wax maaragtay waxaa la rabaa in qabyaalada lagu dumiyo dabadeetana qabiilba qabiil uu faano qabiilba wax kale uu la yimaado qabiilkii kale uu faano kadibna halkii horumar iyo wax qabsi iyo ay ka eegi lahaayeen ayagii maaragtay sariyadan kadibna seen horeba soo sheegnay marka dambe isla iyaga ku soo noqonaysa waxaas dawladaha shisheeyna adduunka waxa jira farsamooyin fara badan oo wadan marka la doonayo in la burburiyo ama bulsho la doonayo in la kala eriyo loo isticmaala jira bulshadaasna inta aqoonta la garanaysa farsamooyinkaas ay ka mid tahay hogaamiyayaasha ama madax dhaqameedka waxa la yiraahdaa oo tiro badan iyaguna waxay bacrimiyaan ama ay beeraan oo biyaha gunta ka waraabiyaan gebiga qabyaalada iyagoo oo mid kastaaba cumaamada aan cidna saarin reerkii aanay u dooran ama wax maaragtay u qabanayaaba aanay jirin oo yiraahdo aniga maaragtay suldaanka reerka caaqilka reerka malaaqa reerka garaadka reerka chief caaqilka reerka iyo wax ciida ka fara badan si kastoo waxa uu sheegtaba oo ma garanaysaa uu reerkooda ama maaragtay uu boqornimo ku sheegto ama uu suldaan ku sheegto ama uu caaqil ku sheegto ama uu garaad ku sheegto ama uu malaaq ku sheegto ama wixii la midaba uu ku sheegto waxa uu alla iyo waxa uu qabanayo bulshadiisa ma jirta ka ahayn inuu qabyaalada bacarbi waagii hore way ka duwanaan jirtay hadda halka la maraya oo ninka madax dhaqameedka ama beeshiisa hogaamiya waxay ahaan jirtay inuu ma garanaysaa beeshiisa wax hagaagsan ama wanaaga uu maaragtay ku hogaamiyo midnimada beeshiisa wax qabsigeeda waxyaabo noocaas iyo inuu nabad ka hadlo hadda laakiin sheekadaasi way isbedeshay madax dhaqameedku waxay noqdeen inay noqdaan kuwa dagaalkaba hogaamiya oo sida siyaasiyiinta u shaqeeya oo shaxaadka qaata oo la laaluusho hadba la isticmaalo qofna hadii la laalusho ama maaragtay lacag lagu iibsan karana qof qiimo laba ma aha waayo waa aaran markii la doono lacagta lagu shubanayo markay dhamaatana la iska tuurayo qofka bilaadanka ilaahay karaamada siiyay noolna ina sida alaabada ama badeecada ama shay electronic loo isticmaalo halisteeda ay leedahay qaabkaasay noqdeen oo guriga dadweynaha ka hadlayo wuxuu sameeyaa inuu beeshiisa kiciyo beel kale ku kiciyo ama siyaasi reerkoodu uu yimaado kadibna uu ku yiraahdo xilkan doonayay ama meeshan doonayay baan tartamaya layma ogola oo qolada kale saas ahayd ee naga soo horjeeday iima ogola ama inaynu soo baxnaba lama ogola beesheena la ogolaynba inagoo siin horeba ka soo sheedno uu salaankii ugu koreeyay tahay saasoo tahay ninkii madax dhaqameedka beesha u ahaana inta halkan soo taago qolo kale oo halkan soo taago u odhanaya waa laynama ogolee ka kacay dabadeetna dadkana waa maatiba waxba ma garanayaanba oo iyagu meel lagu wadayo meel loo wadayo wax laga wadayo wax loo wada toona ma garanay annaga nala diiday boona hadhow toole hataa adayigu helaan waxa la waxay faa'iidayaan toona iyo wax loo wadayo ma jira waa salaanun bay ahayn iyaga laftooduna sidaasoo ay tahay shacabkuna waa salaan meel lagu gaadhayo ma garanaysaa madax dhaqameedkuna sidiisaba waa aalad la isticmaalayo oo hadba cidii doontaa lacagta ku shubanayso ka dhow toolana markay ka dhamaatana waa la iska tuurayaa qisooyin badan oo ka dhacay baa jiro inaan ku dheeraanayn oo barnaamijka inaga weecinaysa sidaasoo ay tahay madax dhaqameedka ama hogaamiye beeleedadu noocay doonaan ba ha noqdaane nabad waagii hore ka talin jira hadda laakiinse waa farabadnid waxay keenaysaa inay maaragtay waxaan wixii ahayn ay maaragtay ay soo saaraan ama garaad ama ugaas ama caaqil ama boqor ama suldaan ama malaaq ama wax iitaa ka fara badan oo ayagu ku faanaan nin kastaaba marka uu doonayo inuu nooca milkibir xaafadooda noqdo horan ana noqonaya calaamad saaro aan du sheegay baadiya waa hagaag daawadayaal haddaba maxaa xal ah halka qabyaalada horta meel halis ah maraysaa bulshadii kala geynaysa dad horumarkii ka soo horjeeda aqoontii ka soo horjeeda nabadgelyo kasta ka soo horjeeda wax kasta ka soo horjeeda halka qabyaaladuna waa bulshada inta aqoonta leh ee cilmiga culimada iyo inta ay ku hadhay aqliga saliimka oo isku tagta oo dabadeedna wacyi gelin ballaaran oo aan joogsi lahayn bal isku dayda hore loo isugu dayay in qabyaalada lala dagaalamo loo taag waayo laakiin haddana intii la qaboojin karaan bal in la qaboojiyo waa wax aad iyo aad u muhiim ah daawadayaal ku sii dheereen mayno mawduuca toddobaadkan oo barnaamijka jalaacada jimcuhu ku saabsanaa oo xumaanta ay leedahay qabyaalada oo la sii wiishanayo marba marka ka dambaysa halka ay nala maraysa aynu arkayno daawadayaal magacaygu cabdiraxmaan rashiid dalmar halkan nagala socotaana waa arag media iyo dhexniba TV intaynu toddobaadka ka xiga haddii ilaaha awood leh inoo ogolaado aynu ku kulmi doono waxa idinka tagayaa sidaa iyo nabad geliyo